wasiirka dib u dejinta Soomaaliland Cali Saciid Reegal oo weheliyaan wasiiru dawlaha waxbarashada Maxamed Xaaji Aadan Cilmi iyo wasiiru dawlaha wasaaradda xanaanada xoolaha Cabdirashiid Zeeraac oo muddooyinkii u dambeeyay howlo shaqo ku joogay gobolka Saraar ayaa habeennimadii xalay kulan ballaaran kula qaatay hoteelka caalamiga ee Caynaba maamulka gobolka Saraar kuwa degmada Caynaba iyo bulshada qaybaheeda kala duwan kulankaasi oo ujeedadiisu ahay sidii loo adkeyn lahaa ammaanka guud ee gobolka Saraar iyo sidii la isaga kaashan lahaa horumarka gobolka waxaana ugu horeyn kulankaasi ka hadlay maayirka degmada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf barsaabka gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax Dr. Cabdirashiid Maxamuud Cali Saxar xubno isugu jira uqaal waxgarad waayeen kuwaasi oo dhamaantoodba ku dheeraaday ahmiyadda ay nabadgelyadu leedahay waliba isduwayaasha inay nabadgelyada xoog nagala shaqeeyaan oo iyaguna isu arkaan iyo shaqaalaha dawladdu dadkii nabadgelyada waayo haddii nabadgelyo la waayo meel laga shaqeynayo iyo meel wax laga qabanayo iyo meel wax ka soo baxayaan toona ma jirto wax badan baynu tabanayno aanin badan ka hadlayno kabka iyo Somali Development Fund wasiiro labadaaba gobolku waa ka qatay nabadgelyo darra haday tabaado waa nabadda wax walba muftaaxa u ah nolosha haddii la hayo nabad la waayo wax alla wax soconayo horumar iyo jaamacadan aan sheegaynay waxari iyo maxaa cusbitaal loo keeni waayo maxaa caafimaad loo habiyo loo waayay ma jiraysa waxay noqonaysaa risk area meeshaasi midna arabka ku dhufanay nabadgelyada waxa weeye booliska iyo ammaanka mas'uulka tariiqeybtu waa fadhiya waxa laga rabaa inaad guntiga dhiisha iskaga dhigto waxa laga rabaa goob walba oo nabadgelyo ka jirto oo khalkhal ka jiro inaad taagnaato waxa laga rabaa inaad information ka raadiso oo dhagaato gobolkaagu wuxuu ku sugan yahay 24 saac inaad ka warayso ee tagay iyo kuwa soo socda inaad la socotaa laga rabaa al-amn qabla al-iman hadii aan nabadgelyo jirin dhakhtar shaqeyn maayo oo macallin shaqeyn maayo oo wax kale shaqeynaya ma jiro horta marka hore nabadgelyada inagoo midaysan waynaynu meel uga soo wareejisana dhakhtarkeena macallinkeena nabadgelyo meel aan jirin waxa ma jiraan haruumada ma jiro caafimaadna ma jiro waxbarashada ma jirto deegaanada ma jirto wada oole ma jiro haddaynu nahay gobolka Saraareed aan ilaashano nabadgelyadeena iyo islaamka kale iyo Soomaaliland waxa inoogu daran in nabadgelyada xumeeya waa dadka dibadda ku maqan iyaga lacagta ku bixiya iyaga wax soo gubaabiya iyaga rasaasta iibiya iyaga ku baroorta iyaga waxa soo dhaqashaqeeya waxa loo dadka dibadda ku maqan ilaahay ka baqa hawshan laga hadlay seerayaasha ama dhuxush waa afa gobolkan taala waxaan leeyahay hawsha waxa laga bixi karaa wasiirre ciidankii gurmadka halkan baryahan laga sugayay ciidanka Soomaaliya imaado wax badan ba iska kaya bedelay waxaan codsanaynaa oo aan leenahay in loo soo dedejiyo hawsha si weyn wax looga qabto maanta isduwihii deegaankan anagu wada joognay qaylada dhawaaqa ka soo baxaya Saraar ama dhuxusha laga shidayo dhibtii waa ku soo noqotay Saraar xoolihii dadkan ku noolaa markii oodii dhulkii laga xidhay seeladaha imika ma tagaano lama iibsado xukuumaddu soo hawgaato awskay daaqir ahaayeen waxa cuna ariga laga raro beled weyne iyo ka boosaasan laga raro ayuu u xidhay waxa soo socota sanadahan dhow dadkan inay ayroobaan oo xoolo beeraan xukuumadda arrinta la socdo nabadgelyadana reer Caynabo kamiya ku maqan iyo ka magaalada ku maqan iyo ka joogaba way u guntanaa geesta kale waxaa kulankaasi ka hadlay wasiirka dib u dejinta Soomaaliland wasiiru dawlaha waxbarashada iyo wasiiru dawlaha wasaaradda xanaanada xoolaha kuwaasi oo bulshada kala gedisan ee ku nool gobolka Saraar ku booriyay sidii la isaga kaashan lahaa ammaanka guud ee gobolka waa gobol u baahan in muujisaan baahidiina waa gobol u baahan inaan nabadda runtii wax walba ka hormarisaan inta waxa u dheer waa xuduntii Soomaaliland gobolkan hadii ay ciidamada amniga tahay iyo haday isu duwayaasha tahay iyo hadii ay golaha cid kastaba ha noqoto waxa weeyaan cidda ay xukuumaddu runtii eegaysa waxa weeyaan gudoomiyaha gobolka nabaddu ma dhamaystirmayso haday naar u dhamayn haday ardayada ay qusaysato haday dhammaanba shacabka sool tahay haday gaar ahaanadka Saraar tahay dhammaanteenba inaynu diyaar u nahay ilaa heer qaran nabadda aynu xidhnay sidii ay ku dhamaystirmi lahayd inaynu u dhamaano ilaahayna kaashano qabyaalada daanigu qeexi maayo caaw ilaahay uu qeexay nabi maxamed uu qeexay dadka halkan fadhiya ee waxgaradkii ummadda ahi waxay tahay way garanayaan wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu maaha litaqaatalu maaha litaxaasadu waxaasoo dhan maaha litacaarafu ilaahay mashaqadii halkan ka dhacday gobolkan Saraar iyo Yeyle oo kamida gobolka Sool degmada Yogoori runtii waxa weey waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa wasiirada aan la qabaa sida
dhammaantoodba dadku iyagoo isku duuban magacay doonaanba ha lahaadeen hawsha ay uga qayb qaateen aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waana waajib waa xun in dhinac looga soo wada jeesto oo dhinac laga soo wada safto waa arrinta guusha ku jirta waxa weeyaan qof gacan ku dhiigle ah meel kasta ha tagee laga hari maayo dowladduna ka hari mayso ballamo iyo muddaana la qaatay ooda waa la baabinaya beer lagama hadlayo beertu waa meesha wax ka soo baxayaan oo ama khudrad noqoto ama miro kale ka soo baxayaan laakiin xirmooyin gobolka waxa baabiyay waa xirmo dambe ma jirayso hadduu shacabkii diiday inuu xirmadii joojiyo oo mas'uuliyiintii gobolka la maqli waayay oo golihii deegaanka la maqli waayay dowladda baabinaysa waxa laala wixii ka hor yimaada oo daana iyaga waxay ka helayaan si kastaba ha ahaatee kulankani lagu xoojinayo nabadgelyada ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii u dambeeyey ee ka dhacayeen gobolkan Saraar iyo Sool shaqooyin sababay dhimasho iyo dhaawac. Salawaan Cilmi Saciid, telefishinka caalamiga Star, Aynaba.